caawa qaaradda Yurub waxaa la daawan doonaa xulka haysta koobka qaramada qaaraddaas Yurub ee Talyaaniga oo mar kale ciyaari doona. Talyaaniga ayaa waxa ay soo dhaweyn doonaan Federico Chiesa, Lorenzo Inzaghi iyo Giro Immobile kuwaas oo diyaar u ah inay ciyaaraan ciyaarta maanta Khamiista. xulka Talyaaniga uu wajihi doono isreebka koobka adduunka xulka qaranka wadanka Bulgaariya. ciyaartan ayaa qaaradda Yurub laga daawan doonaa 20 iyo 45 daqiiqo marka ay tahay. tababaraha Talyaaniga ninka lagu magacaabo Roberto Mancini ayaa waxa uu ciyaari doonaa kulankiisii ugu horeeyay tan iyo markii uu ku guuleystay koobkii qaramada qaaradda Yurub oo ka dhacay garoonka Wembley finalkiisa Ingiriisku ay ka qaadeen. Giorgio Chiellini ayaa seegi doona ciyaartan waxaana lagu bedeli doonaa Francesco Acerbi ninka lagu magacaabo. kabtanka xulka qaranka Talyaaniga waxa uu noqon doonaa Leonardo Bonucci. waxaa sidoo kale dhexda ka ciyaari doona raggii wacdaraha ka dhigay Euro ee kala ah Nicolo Barella, Jorginho, Marco Verratti, halka Chiesa iyo Inzaghi ay caawin doonaan weeraryahanka reer Lazio ee Giro Immobile. Talyaaniga ayaa waxay ciyaari doonaan shax ah 4-3-3 waxaana goolka qaban doona goolaha Paris ku biiray ee Donnarumma, halka daafaca ay ciyaari doonaan Di Lorenzo, Acerbi iyo Bonucci. Emerson ayaa lambarka 3 ciyaari doona. Barella, Jorginho iyo Verratti dhexda ay iska kaashan doonaan, halka Chiesa iyo ciyaaryahan Inzaghi labada garab ay ciyaari doonaan oo ay kaabi doonaan weeraryahanka lagu magacaabo Immobile. xulka Bulgaariya ayaa iyagoo ciyaari doona 3-5-2. Talyaaniga wiilashooda ayaa wargeysyada ka soo baxa dalka oo ay ciwaano kala duwan ka dhigeen boqortooyada qaaradda Yurub oo ciyaaraysa iyo waliba wiilashii Wembley wacdaraha ka dhigay oo mar kale la daawan doono.